doorashada saddex tiiro waaweyn ay ku taagan tahay qof iyo cod kow waxay ku taagan tahay in is ogolaasho siyaasadeed dadka xisaabta ama dadka wada raba horta ay wada ogol yihiin hanaanka labo in uu jiro capacity hay-ado fulin kara taas Somaliland oo kale guddiyo doorasho ay 20 sano lahayd capacity yeesheen Soomaa inay jirto iyo dhaqan inuu jiro midda saddexaad waxa waaye qofka madaxda ah inuu leeyahay sumcad ku filan oo lagu aamini karo inuu doorasho ku qabanayo maanta siciidan hadduu yiraahdo doorasho qof iyo cod aan Puntland ka qabanayo waa la aaminaa sababtoo ah qabtay wuxuu proof gareeyay inuu qaban karo tii golaha deegaanku tii baarlamaanka ma ku dari karaa uu qaban karaa sumcad uu dhistay Somaliland kama hadlayna taas cid kale oo sumcadaas leh horta dalkan ma noola mahado marka dawladdeena sharafta leh hadda qof iyo cod ka shaqeynaysa waxa laga rabay aniga aduna dooda aan joognaa jirto 2 sano ka hor xamaray doorasho golo deegaan ka qaban kareen waa ka qabaayeen sanad ka hor ka qaban kareen waa ka qabaayeen 6 bilood ka hor ka qaban kareen waa ka qabaayeen waa adag tahay marka maanta in qofkaas laga aamino doorasho qof iyo cod aan qabanay hal la aamino ayadoo aysan inta kalena jirin hay'adaha noo dhisnaana ma jirin muxuu ahaa is ogolaasho siyaasadeed hadda la wada ogol yahay ma jirto waxaas waa marka meelaha aan leeyahay wuxuu saldhigga hoose ka jaban yihiin